cibaadooyinka Ilaahay subxaanahu wa tacaala loo jideeyay aad bay u fara badan yihiin. waxaa ka mid ah cibaadooyinkaas saliga Nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyo. waxay ahayd haweeney saalixad ah, waxay markastoo ku salin jirtay Nabiga calayhi salaatu wasalaam. markastoo tilaabo kastoo ay qaado waxay ku salin jirtay Nabiga calayhi salaatu wasalaam. muddo dheer ka bacdi haweeneydii waxaa guursaday ninkaas muu ahayn nin caalim muu ahayn, wuxuu iska ahaa nin diinta si fiican u haysanin. markuu guursaday gabadha ayuu ku arkay arrimo cajiib ayuu ku arkay gabadha. markii hal meel ay wada joogaan, gabadha markastoo waxay ku salin jirtay Nabiga. wuxuu dhibsaday gabadha markastoo waxaanay akhrinayso. markuu dhibsaday ayuu u tagay nin saaxir ah. ninka saaxirka ayuu ku dhahay haweeneyda markastoo wax ayay akhrisaa, marka waxaan ay akhrinayso ayaan runtii dhibsaday. marka wuxuu dhahay waxaan ku siinayaa alaab ayaan ku siinayaa, alaabtaas guriga gee. guriga markaa geyso haweeneyda inay furtaa la rabaa. hadday furto sixirkaas aan meesha ku soo riday haweeneyda wuu qabanayaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisii ninkii markuu keenay alaabta guriga markuu keenay, haweeneydii waxay u maleysay ninkeeda inuu u keenay hadiyad. waxay damacday inay furto. markay damacday inay furto way furi wayse. maalintii labaad ayaa haddana isku dayday inay furto. markay furaysay waxay ku salisay xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qoray sixirkii meesha uu ku soo riday inuu u bedelmo dahab. runtii haweeneyda way faraxday markay aragtay dahabka. ninkeeda ayay u mahadnaqday, waxayna ku dhahday waa mahadsan tahay yaa zawji. runtii ninkii wuu la yaabay, asaga wuxuu ogaa meesha waxa lagu soo riday inuu sixir u yahay, balse haweeneyda markay furtay waxay aragtay dahab. runtii ninkii aad buu la yaabay, wuxuuna ogaaday inuu dembi ku dhacay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu u toobad keenay, wuxuuna ogaaday saliga inuu leeyahay faa'iido weyn.